السلام عليكم soo dhawaad saaxiibayaal meel kasta oo ka joogteen dunida daafeeda magacaygu waa Axmed Faarax halka nagala socotiina waa Himila High School iyo waliba Himila Media Production saaxiibayaal muuqaalkan waxa ku bar doonaa kombiyuutar kasta waxa uu leeyahay godad u gaar iyo botamo u gaar hadaba godadkaas iyo botamadaas iyo waliba waxyaabaha ay qabtaan iyo kuwa ugu caasanba muuqaalkan ayaa ku bar doonaa qodobka koowaad ahna buttonka ugu caansan ayaa wuxuu yahay power button wuxuu ku ooli karaa qaybta hore ee systemka kombiyuutarka hadii uu yahay all in one wuxuu ku ooli karaa qaybta gadaale hadii uu yahay laptopna wuxuu ku ooli karaa gudaha waana buttonka ugu caansan ee la yiraahdo power button qodobka labaad ayaa wuxuu yahay xarga chargerka ee loo yaqaan power cord laptopkana waxaad ka gelinaysaa qaybta hoose ahna geeska bidix ama midig labadaba uu ku ooli kartaa qodobka saddexaad waa USB kombiyuutarada qaar ayaa waxay leeyihiin hal iyo wax ka badan oo USB intooda badan waxaa loo isticmaalaa keyboardka printerka flashada iyo any shay oo la geli karo qaybta USB qodobka afraad waxaa jira godad badan oo leeyahay systemku kuwaas oo isku xiro dhalada iyo systemka waxaan lagu kala magacaabaa HDMI, VGA, mini display iyo USB-C type waxayna qabtaan shaqooyin kala duwan hadii ay laptop tahay waxaad fiirinaysaa kaliya godka oo xarigan gala kadibna sidaas ayaad kula xiraysaa qodobka shanaad godkan waxaa lagu magacaabaa internet cable waana meesha kombiyuutarka looga xiro internetka markii aadan isticmaalaynin wifi ama internet kale ee qodobka lixaad godkan ayaa waxaa lagu magacaabaa speakers waa meesha kombiyuutarka looga xiro dhagaha iyo samiicadaha qodobka toddobaad qaybtan sare ayaa waxaa loo isticmaalaa in kombiyuutarka laga gelsho CD-ga, DVD-ga iyo canjalad kasta oo markaas la galaa kombiyuutarka qodobka sideedaad systemka noocaana ayaa wuxuu yahay systemka hore qaybta ku calaameeyay ayaa waxaa loo isticmaalaa printerka keyboardka iyo muuska oo halkaas ayaa lagu xiraa systemka qodobka sagaalaad printerska keyboardka iyo muuska ayaa hadda waxay kombiyuutarka ugu xirmayaan laba qaab inay ugu xirmaan waa qaabka koowaad oo ah wireless ahaan iyo inay ugu xirmaan qaab USB ahaan oo ayaga iyo flashku isku meel ay ugu xirmaan kombiyuutarka